Welcome to Elais Technology and Entertainment. bismillahi raxmaani raxiim. halkani waxaan ka bilaabi doonaa maadooyinkani office-ka ahay. maanta waxaan baran doonaa buug loo yaqaano Windows 7. buug Windows 7 hadda maanta cashirkooda waxaan qaadan doonaa ilaa iyo 5 qodob oo ah changing desktop background, sida u bedelin lahayn muuqaalka shaashadeena. waxaa kaloo baran doonaa inaan taskbar maxaa la dhahaa. waxaan baran doonaa sidee baa qaab automatic ee taskbar inuu isku qariyo adoo soo muujin karaa. qodobka afraad waxaan baran doonaa login taskbarka shaashada in la xiro oo dhaqaaqin. qodobka shanaad waxaan baran doonaa changing the position of taskbar, sida boosaska taskbarka oo bedeli lahayn. haddii aan qodobka ka marno oo ah changing desktop background, sidee u bedeli karnaa shaashada shaashadana waxaan leenahay stepkan ay marinaa. waxaa leedahay right click on your desktop blank area, kadib waxaa leedahay click personalize aad dooranaysaa. kadib waa kuwana Josh your picture, sawir aad dooran kartaa. hadda sawirkan noo saaran tusaalahan waxaad dooranaysaa sawirkan kaleeto. kligaad hamartiisa qaab automatic ah meesha ayuu ku saarmayaa, halkaas ayuu ku soo saarmayaa. kadibna saas ayuu qaab automatic u qaadan doonaa. waa arkaysa hadda waa muuqataan. qodobka labaad waxaan kala baran doonaa waxa loo yaqaano understanding taskbar. taskbar maxaa la dhahaa? wuxuu leeyahay taskbar waxaa la dhahaa is the bar of your computer. waa qayb ka mid ah computerka oo desktop ka mid ah. desktop waxaa loo yaqaanaa shaashada, waa qayb ka mid ah. that contain taasoo ka kooban yahay star button ka mid ah. representatives wuxuu matalayaa u lahay programs ama application windows. qaababka application ka saaran tusaale ahaan fiiriya. taskbar waxaa la dhahaa wax kor saaran desktop hadda kana oo waxaan taageernaa shaashada computerkeena. taskbar waxaa la dhahaa qaybtan hoose waxaa la dhahaa taskbar. awjeedaan midda kale wuxuu dhahay waa meesha application lagu kaciyo. hadda application ay kacsan wordkan iyo applicationada kaleeto waxay kor saaran yihiin taskbarta. waxay kamid yihiin hadda korka waxay saaran yihiin korka taskbarka. taskbar intaas ayaa u bixinaa. qodobka saddexaad waxaa weeyaan automatic hiding taskbar. hadda sida awsanahay taskbarkeena wuu taagan yahay. hadda samaha ma qarsamooyo mana soo baxooyo. sidee baa si qaab automatic adigoona taawanaynin taskbarkeena inuu u qorsamo hadda soo bixi karaa ayaa balan fiirino. horta marka waxaa kortaysaa right click ayaa leedahay on taskbar. kadib waxaa leedahay taskbar setting ku dhufaysaa. meeshan waxaa ujeedaa log taskbar inaad taskbar xidid. inta ku qoran automatic hiding taskbar in a mood in desktop mood. meeshan ayaa furaysaa click siinaysaa. haddii aan dhahay meeshan maxaa dhacaya marka fiiri. qaab kaliis ayaa isqarinayo hadda soo muujinayo. bal aan fiirino mar. wajid samahan kaliis ayaa isqarinayo hadda soo muujinayo. sidee baan hadda marka maadaama uu taskbarkeena qaab automatic ah isku qarinayo isku muujinayo waxaa la automatic hiding taskbar loo yaqaano. qodobkaas weeyaan automatic hiding taskbar. sidee baa taskbarkeena oo si qaab automatic ah inuu isku qariyo hadda soo muujinaya. qodobka afraad waxa weeyaan sidee baa taskbarkeena log taskbar. waxaan macayaa tusaalahaan taskbarkii aragtay application qorfarda u dhaqaaqo oo baxay haddana hadhow kaliis soo baxayo. waxaa rabtaa inaad ka hortagtid. sidee baa log u sameynaysaa? sidee baa u xiraysaa? bal fiiriha mar. waxaa leedahay right click aa leedahay. kadib meeshaan laba step mar kartaa inaad dhahdid log taskbar inta aa ka dooratid saas oo ku xiran yahay. ama haddii kale waxaa leedahay right click aad meesha kulamaysaa. meeshan jag ma qaadano anaa hadda jag saarnay setting baa tahin haddane wado kala maraynaa. meeshan maxaa waaye login taskbar ona noo tahay off ka dhiganaa. hadda fiiri inta korta right click leh inta ma saarno jagka daay ma saarno. login screen login taskbar waxaa la in shaashada la xiro. qaabkaas ay xiri kartaa. hadda taskbarkeena ma la qaaqi karo oo inuu kaliis muujiyo haddana masqari karo. waa inaan log ku sameynaa. qodobka dambe waxaa weeyaan oo shanaad changing the position of taskbar. inaan bedelno boosaska taskbarka.
tusaale ahaan waxaan doonaynaa taskbarkeena inuu halkan tago top meesha kore, left inuu tago dhanka bidix, sidoo kale right inuu tago dhanka midig. sidee baan ku samayn karnaa? waxaan leenahay right click on taskbar. haddii aan dhahay inta meeshaan banaad aan right click soo baxayo, laakiin horta waa ina qortaa waxaa ku tagaysaa taskbarka right click ayaa leedahay, kadib waxaa leedahay taskbar setting. kadib waxaa samayn kartaa meeshaan waxaa fiirinaysaa positiono taskbarka on fiiriya waxaa qoran taskbar location on screen. hadda wuxuu ka saaran yahay button qaybta hoose saaran yahay. sidee baa u dhigi karnaa qaybta sare? top aan ka dhigi karnaa. meeshaa furaysaa waxaad dooranaysaa top aad dooranaysaa. taskbarkan wuxuu tagayaa qaybta sare ayuu tagayaa. taskbarkan wuxuu tagayaa qaybta sare top ayuu tagayaa. kadib waxaa leedahay minimize leh. haye taskbarkeena fiiriya xitaa aan xirno automatic aan ka qaadno, logan aan ka qaadno. taskbarkeena intoo tagay meeshii sare. haye waxaan rabnaa inaan geyno dhanka bidix, waxaan rabnaa inaan dhanka midig. hadda loo hada ku xirnayn xitaa by dragging samayn kartaa, by dragging aad samayn kartaa. waa qabanaysaa waxaad geynaysaa halkan by dragging aad samaynaysaa. habka samaynaysaa by dragging. sidoo kaleeto ama right click ayaa leedahay, taskbar setting ayaa leedahay. meeshaan maxaa ku taalo meesha daana keen saasikii hoos top ma doorno, left ka dhigbo. maxaa noqonaya? maxaa dhacaya? fiiri left dhanka bidix u tagayaa, right click dhadane right dhanka midig u tagayaa. kadibna button sidoo hore kusoo celi. waa tahay maanta waxaan ka hadalnay 5taas qodob aa ujeedaan. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen 5tii qodob aa maanta ka hadalnay oo ah 5taas qodob aa hadda ujeedaan. waa mahadsantihiin inta muuqaalo xeela socda insha allah. okay, sidoo kale ha ilaawin inaad subscribe aa saartid oo janaalkeen aad rukumatid. sidoo kale ha ilaawin inaad gamareelka furato si aad u socotid muuqaalo cusub oo dhammaystiran.